saabsan hambalyo aan u dirayno labada YouTuber ee maanta meherkoodu ka dhacay Afrika iyo Malaysia, caasimadda Kuala Lumpur ee Malaysia. Haddaba waa kuma labada YouTuber ee Ilaahay isku calaf ka dhigay, maadaama ay bishii Ramadaan ku jirno 10kii ugu dambeeyay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa dhammaan qoysaska cusub ee isku soo biiri doona iyo qoyska maanta dhismay. Waxaa la yiraahdaa Nuruddin KL iyo Atrisha Baadiyo. Waa laba YouTuber oo caan uga ah Soomaali YouTuberska. Barta YouTube-ka Nuruddin KL qiyaas ahaan waxaa ku xidhan 80,000 oo qof oo Soomaaliya, halka Atrisha Baadiyo ay ku xidhan yihiin tiro gaaraysa oo shacab ah 100,000 oo qof. Intaas Ilaahay ha ka dhigo qoyskii isku ee is-anfaca, ubad khayr qaba iyo carruurna kala hela. Nuruddin KL ayaa shaaciyay bartiisa uu ku leeyahay YouTube-ka ee Nuruddin KL in uu mehersaday maanta oo taariikhdu tahay 17kii bishii shanaad 2020 in uu mehersaday YouTuberada caanka ah ee Atrisha Baadiyo, taas oo ah gabadh markii hore Soomaaliyeed isla markaana ka soo jeeday Puntland. Atrisha Baadiyo iyo Nuruddin KL ayaa wada shaqo ka dhaxaysay intii aanay mehersan, ay xiriirka jacayl ka wada dhexeeyeen maadaama ay isku gobolna joogaan oo ay joogaan caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur. Waan ognahay dhammaan YouTuberska ugu badan Soomaalida uguna tunka weyn ee isla waqti xaadirkan ay joogno ay ka mid yihiin arrimaheena Liicato, Muniir Official, Axmed FG ay ka mid yihiin. Dhammaan YouTuberskaasi waxaan ognahay in waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin waddanka Malaysia, isla markaana ay gobol wada joogaan. Isla waqti xaadirkan ay joogno, Atrisha Baadiyo ayaa barteeda Instagram ku shaacisay in ay Nuruddin KL maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 17kii bishii shanaad 2020 ay nolol cusub la wadaagtay, saygeedina uu yahay Ilaahay ugu manaystay. Annagoo bahda xaqiiqda wararka oo isku duuban dhammaantiyo inta dibadda iyo dalkaba joogta, waxaan halkan hambalyo aroos uga diraynaa walaalkay labada YouTuber. Ilaahay isku qoyska ka dhigay in uu ubad khayr qaba oo diinta iyo dadkoodaba anfaca uu Ilaahay kala siiyo, maadaama ay yihiin qoys muslimiin oo maanta